yihiin Ethiopia idin gaarsiinaysa madaxnimo dabaabadeeda madax ku noqonaysiin iyada dalka idin qabanaysa naftiinu waxaan leenahay baan idin sheegtay Soomaaliya waa xur insha Allah xurayna ahaa doonta mana laga adkaa doona bidillah karim waxaan ku daraa intaas waxa jaba waa ciidamada shacab ma jabo shacab ku tala galay inuu isdifaaca ma jabo waxa dagaalamaya maantana waa shacab bidillah karim ma aha ciidan waxa jabi doona waa ciidanka Tigraayda bidillah karim Allahu akbar abeesa waxa la waxay tir hadaan alla eegana allaysaan dhaha hadaan aadama eegana aarsaan dhaha abeesa laga wari waxaan waxa weeye amxaaradan iyo odayaasha ulaha dhaadheer oo wata oo amxaarada soo hogaaminay iyo kuwa wuxuu ku leeyahay shir baa la fariisanaya waxaan ahaan jiray korneel war waxaan ahaan jiray ma rabno waxa ahaan jirta hadda maxaa tahay hadda tuug baa tahay khaa'im baa tahay amxaarkeena mid kasta wuxuu ku leeyahay waxaan ahaan jiray generaal waxaan ahaan jiray korneel waxaan ahaan jiray goormaad ahaan jirta hadda maxaa tahay hadda waxaan ahay dad isku dire ama xaaraso hogaamiye ka soo dare miyaa u bixiseen maxaa la yiraahdaa meeshii Ethiopia maxay magacaadi ya ka soo dare jabahaad bi ka soo galayaan jabahaadka aad arkaysaa waa mididii xabashida iyo cadawga mididoodii weeye midida ay ku ugaarsanayaan weeye oo iyagu qolo walba leh maanta magaalo walba intay istaagaan kula soo gala annaga soo gelinay isagii baa la adoonsanaya iyo dadkiisii wuxuu kale annaga soo gelinay tiigada ka dhacday waad ogeydeen waxa la yiraahdo ninkii ciidanka markii uu qabsaday soo galay haye war xabashi ma haysata 40 kun oo ciidan ku jira xabashi ma haysata wadanka aan haysta nasiib xumad dhowr usbuuc ka horna wuxuu la hortala xabashi see wadanka uga saaraa oo Soomaaliga laha ma wadanka aan haysta xabashida sheegaysa waa maxay ka timi midkii laga reeyaa xabashi u yeeran wax kale ma qabsan karo midka kale ku dhacda maxaa yeelay ma jirto dariiqad kale marka jabahaadka macnaheedu waxa weeye qabiilka iyo dadkii Soomaalidu meel cilaa bay ku dhimanayaan waxay ku dhimanayaan midi u jabhadsito oo isagana mididii lagu shaqaysanayo uu yahay oo ay acdaadu ay wataan weeye sida waaqaca weeye hadalada waxaan u leeyahay aniga wax haba yaraatee shaki igagama jiraan naxdinay igagama jirto waaqaca dalkeena iyo dadkeena ka jira inaan si run u cabiro aan haba yaraatee ka fikirin waxa ka ratimi doona shaqo ku balihi dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya la yiraahdo in loo qaybiyo marka hore to manaatiq in loo qaybso rijin in loo qaybiyo marka ugu horeysa oo aanan automatically marka hore laga dhiginin state kamida Ethiopia in laga dhiginin laakiin marka hore laga dhigo states in laga dhigo rijin in laga dhigo rijin walbana loo sameeyo nin governor in loo sameeyo oo ra'iisul qabiila oo la diiniyo in loo sameeyo goboladaas marka nimanka jooga Soomaalida ee iminka dadku ay yaqaaniin warlordska waxa lagu qancisay oo nin walba oo fermay oo laga qaado laga xaqiijiyay inaanu waxba ka qabanin dawladda Ethiopia inaanu waxba ka qabanin koos noolaadkeeda stage ka labaad waxa weeye in la yiraahdo all waxa weeyaan Soomaaliya under Ethiopia wayna ahaataa qayb kamida Ethiopia weeye centralku waa Ethiopia weeye ayaguna waa rijinna weeye governors marka dambe looga taliyo ardayda waa inay noqdaan yaa diidaya marka waxa diidayaa qadiyada ninkii mutacallimihi toosan ninka wadaadka ah toosan shacbiga toosan gaalo iyo muslim markay dirirayaan oo xarbi uu noqdo gaalo iyo muslim isku soo duulay hadda waxa ishkaalkooda waxa weeye dad baa waxay oranayaan amxaarada dad Soomaaliya la socda maadaama amxaarada dad Soomaaliya la socdo xarbigan xarbi fitna way Soomaali baa ku jiro diriraysa waxaynu niri haddii gaal saa'il uu soo duulay oo dad muslimiin lagu soo duulay dagaalka macnihiisu waxa weeye markii dad muslim lagu soo duulo waa jihaad way waxaynu niri waa midka aanu baahnayn in idan balaqaataba dagaalkii badar nabiga markuu galay kaleey salaatu wasalaam waxa ku jiray adeerkii Abbas baa ku jiray markii la soo qabtay Abbas wuxuu ku jiray ragii la qabtay 70 oday Quraysh la qabtay ku jiray wuxuu yiri anigu muslim baan ahaa nabigu wuxuu ugu jawaabay kaleey salaatu wasalaam haddaad muslim tahay niyada rabbiga ku saaray ama daahiruka waa naga soo isgad waa u gatay ragii isay carruurtii uu la socotay aqiil iyo wixii watay dadkii la sii daayay buu ku jiray oo isgaday hadduu ku dhintana dagaalka ninkaas oo kale muslimka oo isqarinayo gaalada ku dhex jira haddaan dilo diya xataa ma laha ogtii waa muxuu ahaa la diyeyn maayo xataa
waa la soomaya waa laga istighfaaranaya maxaa yeelay annagu ma ogeyn markaan dilayna inuu muslim yahay haddaynu ognahay oo uu saa'il yahay oo uu ku jirana asaga iyo ayaga asaga horeeya dilka murtad weeye waa la dilayaa هذه واحدة إشكال كم موقنا يا وعي يا محاري دب على صعدة سوماليا أما دونتو دلبلي أما دلك كيناي هذا كفرك قفك مركو قالوا بايو أنا مركا كفرك لقى هذا لايو كفر الأعمال وكفر الأعيان لباسا وكلا قيبينين قال هذا قفك الراعة خيار كيسانا كراعة وحي ولا اللي أورنجري هيل يهو إياك القعلوي هيل يهو إياك القعل قدر صلاة يلا انت هذا اللون نقول يا سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مركا واحد ولي يسوه eekal gacaliya hiil iyo hoo ka dhaxaysa iyo maxabo waa muslimiinta wixii muslimna qofka gaara siiyaa waa gaaloobaya marka waa kufrul acmaal haddaba dadka noocaasa asal bay muslim ahaan jireen ama magacooda waxaa la yidhahdaa maxamed cabdullaahi cumar cali yuusuf magaciisii baa magac muslima magaca muslim waxaa ku amaanan odagii bixiyey ardaalkan dhalay ilaa muslim buu odag ahaay daruuri ninkii gaalada ama dadka mujrimiinta awliye ka dhigtay ilaahay agtiisa wax alla wuxuu ka yahay ma jirto waa nas ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku yaalo aayad kale oo quraan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay oo taas la macnaa yaa ayuha alladina aamanu la tattakhidul yahuuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyayo yahuuda iyo nasaarada awliyaha ka dhiganina oo ha jeclaanina oo ha soo dhawaysanina oo ha ku raacina waxay wataan maxaa yeelay iyaga ayaa isu awliyaa idinkuna cadow baa u tihiin xaqiiqada jirta way kiini yeeli waayo Soomaa ayagu ka tirsan yahay buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala marnaba suurtagal ma inaad islaamna ahaato قالنا آد مبدئيسا كل راعدود كل شعلاتاي ووحن دعي كرين الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر فالله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر الله 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 أعلى وأكبر الله 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 أقوى وأقدر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سيدي بلنتو هيد waxaynu guda gali doonaa insha Allah taala barnaamijkii qaybta kaga aadan xilligan hadda aynu ku jirro waxa uu ku saabsan yahay duulaanka xabashidu ay ku soo gashay dhulkeena Soomaaliyeed iyo khasaarihii ka dhashay duulaankaas. waxa ka qayb qaadan doona culimada miiska fadhida wuxuu u qaybsanaan doonaa ilaa 5 qodob hadii Ilaahay idmo. marka waan soo kala hormarin doonaa marka qodob walba nin sheekh ayaa insha Allah taala qaada dhigi doona muddo cayiman waa ay u qoran tahay nin walba sheekh walba waxay u qoran tahay warqada oo haysto insha Allah taala waqtiga oo ugu talagalnay ilaa iyo 45 daqiiqo meelahaas maximum ama ugu badnaan waxaan ugu hormarinayaa hadii Ilaahay idmo gumaysiga guud ahaan in dal xora dal kale uu ku soo duulo gumaysto iyo waxaan la yiraahdaa shuruucda caalamiga iyo qaabka ay u arkaan ayaan ku bilaabi doonaa insha Allah taala waxa qaada dhigi doona Sheikh Mustafa falyatafadal. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد أن runtii mutakhassis anigu kuma yihiin shuruucda caalamiga waxaan moodaa qof caami intuu ka yaqaanuun inaan ka aqaano laakiin waxaa jira waagan dambe gaar ahaan intay dunida uu ka taliyey keliya imbaraatoriyadda Maraykanku oo aan odhan karo wax badan casriga kan waxaa la fudaydiyey in qawaaniinta laga tallaabsado iyo wixii bini aadamku u dejistay oo United Nationska articleska u qoran ee sheegaya sovereignty-ga ama waddan waliba inuu xornimo leeyahay siyaadadiisana inuu ka taliyo inta dunidu ay u ictiraafsan tahay ee u xeeran cid kalena inaanay farigelin ku samaynaynin the United Nationka ama dunida dalalkii ugu xooga badnaaba jabiyay oo ka tallaabay kuwa yaryarina inay iskaga daydaan markaa wax weyn maaha Maraykan baa ka tallaabay Ciraaq iskaga duulay wax u banaynayaana ma jiraan in kuwa yaryarina ku daydaan Ethiopia waa dawlad mustacmara waa dawlad ka qayb gashay isticmaalkii Afrika la gumaysanayay 1884 Berlin shirkii lagu qabanayay waa dawladda qura ka soo qayb gashay ee Afrikaanka ahayd ee ka qayb qaadatay inay wax gumaysato gumaysi hore Soomaali qayb ka mid ah ugu qaadatay oo Ingiriis iyo intii la socotay ay siiyeen maantana inta hadhay xuduudda ka talawdo haddaanu jirin cid ka celinaysa waa wax iska macruufa bale ciddii la filayay inay maanta dee dunida ugu togtog roon tahay oo ay ahayd inay xeerka ilaaliso ama qaanuunka dawliga ilaaliso waa dawladda maanta basharka ugu xooga badan leh ee dawladda Maraykanka iyadaaba ku caawisay inay baaqiga u garaacdo oo xoololey iyo dumar iyo caruur iyo kuwan inay B52 yana ku garaacdo iyadaaba ku caawisay qirsanna inay caawisay oo aan ahayn marmarsiinyaha terrorist baa meel galay kolba habar meel maraysa inta la dilay in la yidhaha terrorist baa meel galay waa marmarsiinyahan waxba ka jirin laakiin waxaa muuqata uun Ethiopia cidna wax may weydiinin xuduudda waa ka soo talawday xoog baanay kaga soo talawday haddana cidna wax ma weydiisay xoog bay ku wadaa inta aanay qoriga ku wadinna qalinkay ku amartaa dunidu invasionka ama duulimaadkaasi Ethiopia ay samaysay qaarna waa ku taageereen qaarna waa aamuseen qaar waa ku taageereen oo Maraykanka iyo inta la socota waa ku taageereen qaarna waa aamuseen oo silence-ka United Nationka dhexdiisa aamusan yahay ama OAU aamusan OAU United Nationkuna waxay leeyihiin UNISOM ama OAS ciidamo kale hal la geeyo laga hadli maayo kuwan ku jira kuwa kale laga wada hadlayaa hal la geeyo kuwa xeerka waafaqsan kuwa kan waafaqsan laakiin United Nation baan ka hadlayn OAU baan ka hadlaynin Arab baan ka hadlayn cid kale aan ka hadlaynin dunidu maanta waa power xoog baa la isku wadaa qaanuun cidiisuma hagtiya kitaab toona cidiisuma farto
qaanuun waxa ugu dambeeyay Guantanamo qaanuun ku dhintay Maraykanku iyadoo dunidoo dhamay arkayso ayuu sameeyay meel out of law out of humanity meel aan xeerna qaban bini aadamnimadana ka baxsan dadkana lagu gumaysto oo dunida ku taala wadanka gudihiisa dastuurkii uu ka saaray khaarij ardihi buu dhigay caalamkoo dhami waa arkaa waxa fiican in la xidho iyo waa soo xidhaynaa iyo warkaasi waa warun la isu sheegayo laakiin it's out of law idan haddii wadankii ugu xooga badnaa ee dunida u sheegay inuu dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo wax raadacaynayo hadduu isagu sidan yeelayo geela duqdiisu durdurisay bay Soomaalidu yidhaahdaan arankiisana maxaad moodaa yani kii ugu xooga badnaaye isagu dimuqraadiyad iyo xorriyadda sheegaya hadduu sidan yahay dictatorka yare malasna maxaad u malaynaysaa malasna danka male isna xooggaas iyo qasabkaas ku wadaya su-aasha markaa maanta taagan ee odhanaysa xeerka caalamiga xeer caalamiya cid ilaalin maysa Soomaaliya ha istifaacdo qofna qasab laguma haysan karo ciday doonta ha noqoto ilaahu may kuwa dunida ugu xooga badan noqdaan waa la kala geeri bataa ama waa la kala dhib bataa laakiin qofka bini aadamka haddii caqliga laga gumaysto baa la gumaysan karaa dii lagu qanciyo caqliga laga gumaysto baa la gumaysan karaa laakiin compulsory cidna laguma gumaysan karo Ethiopia waxaan rajaynayaa iyadoo shirka yar inay iska tagi doonto laakiin waqtiga ay qaadanaysaa wuxuu ku filan yahay inta uu qofka Soomaaligi xorriyadda doonaya uu ka fakarayay inuu xoroobo waxa Soomaaliya maanta ka jiraana xeer uu waafaqsay ma jiro haddaan been la isu sheegayno indha la iska ciideynaynin wallahu a'lam warka waxa sheegay anigu aan qaanuunyahan ahay waxaan ogahay inay mas'ala iska waadix aan qaanuun badan iyo professor toona u baahnayn جزا الله خيرا waxaan u gudbi doonaa haddii ilaha idmo sheekh maxamed casoowe iyo sababaha keenay duulaanka xabashidu ay ku soo gashay Soomaaliya marka waxa uu kolley ka farcamaya su-aashaas waa su-aal guud mubariraadka iyo maxaa la yiraahdaa marmarsiyaha sidoo kaleeto maxaa laga bedeli karaa ama lagaga taxadari karay inaanay maxaa la yiraahdaa marmarsiyoonka noocaasi aanay meel marin marka insha Allah taala sheekh ayaa inta ay noo sii qaada dhigi doona wixii ka dambeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ندودان وندواد موضوعين خلاصي سنتاي أو معنيه target iyo qodobo kooban ay runtii ka kooban tahay waa fiican tahay dhinaca marka laga eego dhinaca kale marka laga eego waa ijtihaadi oo maxaan ku dhahay sida loo arkay arrimuhu sida u dhaceen oo un culimadu maxaan ku dhahay ay fiirfiirinayaan way inta haddaan ka gudbo waxaan jeclahay hadda ka horna meel kale aan ka idhi shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ama aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo dumarka iyo ragaba intaba inay la ogsoonaado inay jiraan cilmi iyo macrifo iyo aqoon loo baahan yahay in la tixgeliyo ayadoo lagu eegaynin miisaanka kale ay dadku yaqaaniin oo la xiriira maxaan ku dhaaf markuu saa u hadlayay xaggaas u jeeday markuu halka ka fiirinayay saasay ahayd macni arrimahaas iyadoo la fiirinayn mararka qaarkood waa inaan ognahay in laga hadli karo wax ka baxsan sida fadhi ku dirirnimada macnaha marka intaa ka baxo sababihii keenay dagaalka laba arrimood baan u qaybinayaa nooc muxaadaradii iyo kelimadii aan sheegay uu ku jirtay noocna waa marka xagga cadowga laga fiiriyo dhinac kalena waxa weeye marka dadka inaga iyo sideen wax u maamulay iyo sideen wax u qabanay laga fiiriyo labada dhinac baan ka eegi doonaa dhinaca Etoobiyaanka inay asbaab u haystaan
ama mubariraad maxaan ku dhahayay ay u heli kareen inay soo weeraraan masaladaas ma jirto oo waxaan sheegnay shalayta markaan warramaynay hardan iyo dagaal soo jireena oo taariikh dheer lahaa oon qof iyo wakti iyo zaman go-aan midna ku xadidnayn warkaa waan soo sheegnay ahdaaf iyo nidaam iyo aqraad joogto ah oo mar kasta halganku ka turjumaya inay jirtayna waan soo sheegnay marka kaas ahdaafta iyo aqraadda ay nimankan leeyihiin taagtiiga iyo awoodda iyo furaska jira ee hadba kala duwanun bay ku xiran tahay mooyeen wax maaragtay loo tiirin kara inay asbaab gaara oo iyaga lagu sameeyey ay ka duuleen ma jiraan markii objectiveka xaggaa laga fiiriyo perspective dhinaca marka laga fiiriyo wax tabriira ma jirin dhinaca marka xaggooda laga fiiriyo wax tabriira ooy kusoo duuli kareen oo waddan xora ku qabsan kareen oo dadkii dhibaatada noocan aragnay ay ku gaadhsiin kareen ma jirin sheekhuna waa inoo sheegay maxaan ku dhahayay xataa iyaga qaanuunkooda iyo nidaamkooda marka la fiiriyo dhinaca kale marka laga fiiriyo oo xagga innaga iyo sidaan wax u maamulay ah oo su-aasha dhinaca la xidhiidha ma jiraan waxyaabo laga taxdari karay dhexdeena inaysan dhicin maalan waxaa la odhan karaa ha way jireen laakiin uma wado inay iyagoo kuwa maxaan ku dhahay u tabriirinayeen oo ay uga dhigayso sharci inay soo duulaan laakiin arrimo daakhili ah oy ahayd inaan ka taxadarno oo sidii hadda wax u dhaceen si ka duwan in loo maamulo ay jirta way jiri kareen waxaa ka mid ah in laysku dayo 100% 100 effort wax la jiraa yani dadku inay maximum effort bixiyaan labada dhinacba kamida dhalintii xiwaarkii siyaasiga ah masaladaas masalo maxaan ku dhahay markii si gaar ah loo fiiriyo way jiraa dimindaabiyo iyo dad dhinacyada haystay laakiin guud ahaan marka la soo duuduubo 100% masaladaas sidii loo baahnaa loogama wada shaqayn yani xiwaarkii daakhiliga baa sheegaya adraaftii haysatay masalada wala doodii macnaha dib u heshiisiintii dadka dhexdiisa ahaa masaladaas gaabin baa ku jirtay waxaa kaloo gaabin ku jirtay inaan sharaxaad ka bixino ahdaafteenna islaamnimadeenna ujeedooyinkeenna inaan sharaxaad dheeraada ka bixino oon ka siino innaga iska siina marka koowaad marka labaadna regionkan degannahay iyo duwalka ku nool ka bixino marka saddexaadna beesha caalamka iyo dadka arrimahan daneeya oo kala duwan siyaasiyiin leh aqoon-yahan leh interest groupka wax la yiraahdo dadka arrimaha ku mashquulsanaa inaan maxaan ku dhahay dood sharaxaad badan leh arrinta aan ka bixino waxaan xusuustaa maxkamadaha markii ay nidaamka qabteen oo dawladdii dhalatay oo nidaamku istaagay hal warqad baan xusuustaa oo si rasmi ah caalamka loogu qoray way jirtaa dhoofitaano kala duwan iyo kulamo meelo badan lagu kala galay laakiin diblomaasiyaddii qayb garabkii maamulka ee diblomaasiyadeed ee hawshu lahayd waxaan isleeyahay halkii loo baahnaa maysan gaarin safaradii ay ahayd in la galo duwalkii ay ahayd in lala xiwaartamo aqoon-yahankii ahayd in la shaqo geliyo arrinta in laysu maaragtay la wada dhaqaajiyo arrintaas waxaan isleeyahay ayada lafteeda maxaan ku dhahaa siday ahayd looma maamulin waxaa kale oo jirtay in inta badan hal takhasus lagu fiirinayay takhasuska amniga iyo caskariga yaa wuxuu ahaa 100% intaas inkastoo ay duruuftu keenayso laakiin jawaanibta inteeda kale lafteeda in xad la soo gaadhsiiyo way muuqan kartay in loo baahnaa iyadana way muuqan kartay oo masaladaasna iyadana waa la dhihi karaa waxa ka jirtay sidii loo baahnaa lama gaadhsiin kama wada wax lama qabanin kama wada waqtigu uu yaraa kama wado in wax la qabanayay laakiin waxaan ka wadaa ma la gaadhsiiyey maxay waqti qaabkii iyo sidii loo baahnaa ma la gaadhsiiyey marka haddaan dhinaca ka fiirfiirino way jireen
tallaabooyin qurux badan oo dheeraada oo la qaadi karay qaab aqooneed ah qaab siyaasi ah maxaan ku dhahaa iyo qaab maxaan ku dhahaa xiwaar iyo istiraatiiji intaba laakiin oo taasaasaan ka leeyahay tii hore ee xagga ahdaafta ana wax tabriira ma leh weligoodna way ku taami jireen wayna iman lahaayeen laakiin waxay iman lahaayeen oo arrintani dhici lahayd haddayna istaaginba biqadar illaah in ay yimaadaan si inagoo sidan ka diyaar garowsan iska haysanna kiiskeenu ka sharxsan yahay intan ka waafisan yahay macnaha saas oo kale oo dagaalku sidan ka quruxsanaan kari lahaa marka arrimahaas ayaan oranayaa marka intaas ayaan kusoo koobayaa mooji waqti inuu dhammaaday hada wallahu aclam wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin waa mahadsan yahay sheekh maxamed waxaan uga gudbayaa haddii ilaha idmo sheekh maxamed idriis oo inoo qaada dhigi doona ama ka hadli doona haddii alla idmo khasaaraha uu geystay duulaankaas iyo qabsiga dhulkeena ay xabashidu qabsatay haddii ahaan lahayd khasaaraha kasoo gaaday bulshada iyo dalkaba qarankii karaamada bulshada diinteedii akhlaaqdeedii caafimaadkeedii iyo wixii la midka ah waxyaalaha muuqda ee ilaa hadda khasaaraha ka soo gaaray ayaan sheekha u gudbin doonaa insha allahu tacaala inuu noo faahfaahiyo haddii ilaha idmo الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أنت أنا نقلين طبعا شيخ أرمان وشيخ خسارة خساروينك وكان يدولان كاسوا موكاني waxaan ku lifaaqayaa sheekh maxamed casoowe hadalkiisii khayr allah siiye ma dhici kartay waxyaala lagaga taxadari karay yaan rabay inaan ku lifaaqo siduu uga jawaabay wey oo nacam way dhici kartay xaggeenna soomaali ahaan ama xaakim ahaan inay dhici kartay waxyaalo looga taxadari karay oo aan lagu siin marmarsiinyo oo dadkoo dhan iclaamka ay ka fiirsanayeen iyaguna ay ka dhigteen marmarsiinyo iyagoona u baahnayn marmarsiinyo siduu sheekh mustafa sheegay arrinkan waa arrin aan qaanuun iyo nidaam iyo midna loo eegahayn anaa ka xoog badan iyo anaa doonaya inaan qabsado dhulkaan loo eegayo laakiin marmarsiinyaha laga dhiganayo waxay ahayd nimankan annagay noo socdaan soomaaliya iyadaa duulaan nagu ah inay isu tusiso ethoobia inay daxiyo tahay iyadoo wax qalaysa wax duminaysa wax baabi'inaysa inay adduunka ka dhaadhiciso badan bal xataa carabtii iyo muslimiintii qaar badan inay ka dhaadhiciso ee tiraahdo daxiyan annaga yacni duulaanna la ku yahay ardi sababaa loo socdaa miyaydinaan eegahayn nimanku waxay leeyihiin habeen iyo maalin inaan ardi sababa rabaan inay ciidda yimaadaan inay doonayaan inay annagana baabi'iyaan inay noo qabteen intaasoo maalmood gudahood inay duulaan ugu soo qaadayaan in loo sawiro dadkan soomaaliyeed ee xabashi ay 16 sano iyadoo dowladdeediina dumisay 16 sanana isku diraysay hubka isugu dhiibaysay ay isku baabi'inaysay ay u kala qoqobaysay qabiil gobol u kala qolinaysay waddankana ku jirtay weligeed oo aanay ka bixin hadda un way wada caasimadii bay timi oo salka soo dhigatay mooyaane 17 sano way ku jirtay oo marna kama bixin maalinta doonta soo galaysay ciidamadood maalinta doonta way ka bixisay say doontayna waddanka yeelaysay maca dalika waxay isu tusisay iyadoo inay tahay miskiinta daciifka ah oo niman balaayo ah oo nuclear haysta oo adduunka doonaya inay qabsadaan geeska Afrika oo maaragtay iyagu bal waa ka safiriya telefisyoonadayba ka hadlayaan oo waxay leeyihiin geeska Afrika ba 2 maalmood baan ku durdurinaynaa qabsanayna iyada dhanba annagu ma been bay sheegaynaa waa kuwan telefisyoonada iyo idaacaadka ka hadlayaan nacam arrimahaasu waxay siiyeen marmarsiyo weyn oo ah inaan u sahalnay oo u fududaynay inay qorshaheedii fushato taas intaa markaan uga gudbo khasaarayaalka ay keentay khasaaraha ugu weyn khasaare diiniya way khasaaraha diinta
meeshan asalka siraaca iyo la isku hayaana waa diin wey waana arrin qoto dheer oo weligii socday geeska africa ka socday soomaaliya oo masalaysa islaamnimo iyo asalnimadii islaamka geeska africa iyo xabashi oo iyadu nasraaniyadii orthodoxka ahayd masalaysa marka siraac dheer oo weligii soo socday oo diinta la isu haystay bay ahayd bayna alkaniisa walmasjid masjidka kaniisada u dhexeeyey waxa ay rabto ugu weyn inay waxyeelaysana waa diintaas waaye marka horta khasaaraha ugu weyn inaga daaro burburay iyo dad dhintay waxaa ka daran in la rabo ummaddan waqti dheer diinteeda in dib loo dhigo ama la baabi'iyo ama laga saaro arrinka labaad waxa weeye khasaare macnawiya waxaa la rabaa cizada iyo karaamada iyo ruuxda ku jirta qofka soomaaliga ah in la jabiyo oo gumaysi la ogolaysiiyo iyo inuu gacanta ku jiro oo laga sarreeyo oo la maamulo oo loo sii diyaar garayo in la yidhaahdo etoobiya qayb ka mid ah baad noqonaysaan sida qaybaha hore loo liqay ayib qaybihii hore oo etoobiya ay qaadatay maxay ka qabatay maxay ku samaysay waxaan u malaynayaa dhulka soomaalidu degto muslimiintu degaan etoobiya ay haysato oo hore u haysatay dadka maray waa yaqaaneen waa dhulka ay baabi'isay diin ahaan dhaqaale ahaan waxbarasho ahaan jidad ahaan dhismo ahaan dhinac walba waa dhul la baabi'inayo oo la xasuuqayo meel la maro iyo meel biyo laga cabo xataa uma ay ogolaha inay ka samayso marka sida la doonayso waxa weeye in la jabiyo qofka muslimka ah soomaaliga ah karaamadiisa iyo cizadiisa iyo ruuxda ku jirta in la jabiyo waxa markaa ka bacdi imanaya khasaaraha la geysanayo oo naf iyo maalba leh dadka kumanyaal weeye dadka ku dhintay dagaaladii ay soo qaaday Ethiopia maalintii dhaweyd tirakoobyadii la sameeyay xamar laga sameeyay 10 cisho kaliya dagaaladii ka dhacay waxay ahaayeen ilaa dhowr kun oo qof laakiin inta kumanyaal kale oo ka badan aan la xisaabin baa jira daaraha la dumiyay iyo iskuulada la xiray iyo tacliinta la joojiyay tijaarada la kharibay qofka Soomaaliga ah karaamadiisa iyo cirdigiisa oo lagu xadgudbay oo la ihaanaystay oo kufsi iyo boob iyo dhac ilaa hadda ka socda meelaha ka socda shacabka Soomaaliyeed oo rabo in la kala googooyo oo qabiil ay isugu dirdiro oo la kala xalxado oo isaga dagaalka dhexdiisa si xabashiyo ugu raaxayso oo ugu dakeyso intaas oo dhan waa khasaarooyin ka dhalanay duulaanka iyo khasaarooyin kale oo daba socda oo loo baahay dadka Soomaalida inay dareemaan waxaan ku khatimayaa وكلت يوم أكل الثور الأبيض dadka Soomaaliyeed isku hal meel bay saareen waxaan dadka ugu baaqaya inay taariikhda akhriyaan Sheekh Mustafa wuxuu leeyahay khayr Allah siiye muhaadaro kooban oo ka hadlaysa fi taariikh duruus wa ibar oo ah ibrooyinka ku sugan taariikh Andalus maxaa ka dhacay muslimiinta see loo qabsaday ma xoolo la'aan bay ahaayeen ma tiray la'aan bay ahaayeen ma tabar la'aan bay ahaayeen mase wax kala jiray oo jirro kala jirtay oo cudur kala jiray lagu qabsaday innagana cudur la mid ah yaa maanta ina haysta waxaan leeyahay taariikhda Soomaaliya u noqo annaga reer hebel inta ku jirtaan iyo intaynu ku jirno gobol hebel baa haysta iyo gobol hebel baa haysta ayaa ay noqonaysaa taariikh laga sheekayo inaynu noqono haddii kaleeto waa in inta ma haysano khiyaar labaad ikhtiyaar kale ma lihin hal khiyaar way haddaynu doonayno inaynu jirno oo ka muslimiin ahaan u jirno waxa weeye inaynu u midowno cadowga doonaya inaanu midna naga reebin wallahu ta'ala intaan u gudbin ama aan u gelin qodobka ugu dambeeya insha Allah ta'ala doodeena waxa aan daqiiqad siinayaa Sheekh Maxamed Casoowe si uu u dhameystiro qaybtii ka hadlay barnaamijkiisa markii hore jazakallahu khayr lama xiriidho darsiga su'aalan mar hore ka jawaabay ayaa wuxuu madmadow galay gabadhii weydiisay inay gogol dhaaftay oo iyadoo ninkeedii uusan ogeyn ay gogol dhaaftay ee ahayd maxaan sameeyaa bay tirmaanaan fahmin marka waxaan u sheegay oo fatwadii ahayd inaysan waxba la socodsiinin isagii oo aysan hadda ku dhihin waxaasaan sameeyey ay toobad keento iska aamusto reerkeeda dhaqato si aysan maaragtay mafsado intaa ka badan aysan mar kale u imaanin taasay ahayd marka intaa loo fahmo way haddaan marka hore aysan caddayn waa maasantiin hada wallahu aclam waxaan u geli doonaa insha Allah ta'ala su'aasha ugu dambaysa ama qodobka ugu dambeeya doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay yidadiilada mustaqbalka ee muuqata
bulshada Soomaaliyeed عفوا waxaan ka booday hal qodob aan soo degdegay hal qodob ayaan ka booday waxa ku saabsan yahay qodobkaasi maxay nala gudboon markii aynu ka hadalnay gumaysiga iyo dhibaatooyinka uu geystay waddanka gumaysi soo galay dhibaatooyinka uu geystay waxaan isweydiinaynaa ama mudan in la isweydiiyo muxuu yahay xalku maxay nala gudboon seebaynu ula macaamilnaa ama ula tacaamulnaa mushkiladan taagan ee xaadirka ee ku dhulkeena iyo bulshadeena Soomaaliyeed bay ku jiraan waxaan u deyn doonaa insha Allah taala Sheekh Cabdiraxmaan Abyad oo arrinka insha Allah taala ka hadla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قضب كان وحن أمرين يا ملا واللباح دقيه سيوي حال قمنا يا محين لا قدبون وقضب كوجو هذاك من فيها إن شاء الله وحن كسر خلاصين يا دور الرحمة إن شاء الله هرت أنت عن عمل الجلين ومحين لا قدبون أين كهلين واجبك كواد وحوي هرت إن حقيقة الصراع نفهمه دقال كان ربني مدي صورته إن لفهم الدولة الإثيوبية ودولة مستعمرة وصح لكن محي مستعمرتها محي نوقف سنس ورتطاين لفهمها ومهم وإن بدنا ومدى صومالية أي مسكحة وذا كساران قلب وذا كان نظيفيان إثيوبيا واحد يأتي من صوماليا إن دولة الرستو إن دولة الرستو هجاتي سو عيدني أود أصلا يسوع دلنا إسكاجات تكتو عين كاسي أتيمد horta waa inay dadku maskaxdooda ka saaraan maxaa yeelay waxa adduunka oo dhan ka marxaati kacaya Ethiopia iyo Soomaaliya inay cadow yihiin cadow wax isu dhisan adduunka lama arkin taariikhda ma dhicin midda kale dawladda Ethiopia aynu dariska nahay taariikhda lama sheegin kollaan intaan ka garanayo qofkii inta aan ka baxsan ka garanayana waa ku dari kara taariikhda lama sheegin muslimiinta geeska Afrika ku nool inay wax u qabatay inay wax u tartay ما soo marin taariikh inay wax yeesho mooyee hadii ay Soomaaliya wax u tarayso Ethiopia kuwan iyaga la jooga kilka shanaad ay u bixiyeen meesha ay ku nool yihiin kuwaas ay wax u qaban lahayd wax u tar lahayd qodobkaas horta waa qodobka in la fahmo xaqiiqada siraaca Ethiopia damceedu aad buu fog yahay wadankan Soomaaliya ajiritaankiisa ma ictiraafsana muxaadaraadka taariikhda culimadu ay dhigeen waad ka dhageysateen baan filayaa intiina wax akhridaana waad ogtihiin baan rajaynaya tiba la raba in la xaqiijiyo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan laga dhigo dad iska maaragtay raacata ah oo looga taliyo sababa kaas waa qodobka labaad hadii arrinku sidaa yahay oo meesha caqiido loo dagaalamaya ay jirto adiga jiritaankaaga maaragtay lagu duulaan yahay maxaa kula gudboon marka waxa kula gudboon wasiilo kasta oo banaan oo sharciga iyo diinta Ilaahay ay banaynayso inaad markaa qaado si aad dibta isaga rafiiso yaani maaragtay gacmaha la isqabsado la iskaashado cadawga oo la iska dhiciyo miyaynu ka xishoonaa inaan raano Etoobiyaanka la iska dhiciyo waaba yimaadeen iyagu taangiyoodii watay xamar yimaadeen oo dadkii BM la dhiceen in la yiraahdo war cadawga la iska dhiciyo ma wax laga cabsado ama laga afgobaadsado ama laga boqo ama la yiraahdo xikmadu kuma jirto miyaa warkaas waxaan la yaabayaa marka xikmadu xagee ku jirtaa marka BM-ka kula dhacay haddaad oran karin war ninka iska dhiciya gaalka kugu soo duulay xagee xikmadu ku jirtaa marka ana waxaan oran lahaa wasiilo kasta oo banaan oo Ilaahay diintiisa ay banaynayso oo bimacnaa maartay sharciga Ilaahay ogol yahay in la qaado oo isticmaalka la iska kiciyo bani aadamka oo dhanna waa kula maartay qiraya oo nin kugu soo duulay isu maartay duulay cidna ku oran mayso waxaan ku darayaa insha Allah taala qodobkii Sheekh Maxamed igu horeeyay war midooba ilaa intaad ka cabsataan cadowgu idinma kala yaqaan oo adigu ma reebel baatay mise reebel baatay idin oran maaye ma gobaheel baad ka timi mise gobaheel baad ka timi ku oran maaye ilaahay ka boqo midooba markaasaad wax noqon karaysaan markaasaad maaragtay meel ka soo bixi karaysaan markaasaad ahdaafta aad doonaysaan aad xaqiijin karaysaan waxaan ugu dambaysiinayaa markaan leenahay wasiilo kasta oo diinta Ilaahay banaynayso hal la qaado wixii wasaa'il ay camalkaana waa inay xikmad ku dhisnaadaan waa inay aqal ku dhisnaadaan waa in dadka ahlu cilmiga iyo ahlu aqliga hogaaminayaan ma aha qof kastaba meel burka kala maaragtay kala kac awaadadii saas yiraahdeen bur baan la boodayaa maya waxaan doonaan ku kacayaa maya
yani waxa weeye waa inuu arrinku ku dhisan yahay xikma iyo caqli iyo wasaaishii sharciga ahayd oo fiqhiga loo eego oo maaragtay masaalixda iyo mafaasida loo eego oo maaragtay madaraadka iyo mafaasida loo eego waxaan arrimaha qiimeyn karaa oo culimada weeye intaasaan oran lahaa insha allahu tacaala wallahu aclam waxkam wabillahi tawfiiq baarak allahu fiik waxaa sheekh hadalkiisii uu xusuusiyey maamaha af soomaaliya ku jirto aad iyo aad xaqiiqatan u xigmad badan oo mararka qaarkood la adeegsado la yidhaahdo dhurwaabaa wuxuu yidhi maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa etoobiya dowladda inoo dhisaysa horta way baabi'isay dalkii dowladda laga dhisi lahaa way baabi'isay ummaddii dowladda dhisan lahayna way baabi'isay marka maxaa dowladda la dhisaya iyo cidda loo dhisaya midna ma joogaan hadda meeshii taa waa mid weeye waxaan u gudbi doonaa insha allahu tacaala qodob gunaanid aan ugu talagalnay insha allah oo mawduuca hadda aan ka hadlaynay ah markaynu ka soo hadalnay dhulkiinu gumaysi galay inuu gumaysigaasi akhlaaq xumo ahaa sharci darre yahay khasaare ka dhashay naf iyo maal iyo mood iyo wax walba leh dhaqan iyo diin iyo karaamaba ku tacalluqa markaynu maqalnay xuluusha iyo sida ay tahay inaynu ula macaamilno oo la dhaqanno waaqicaas jira ayaan waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala inaan su-aashan ku gabagabayno muxaadiriinta insha allahu tacaala nin walba laba iyo bar daqiiqad ayaan siin doonaa oo kusoo gabagabayn doono iyo diilada mustaqbalka ee inoo muuqata ee bulshada soomaaliyeed ay ka leedahay inay dhulkoodii u xoroobo karaamadeedii iyo qarannimadeedii ay dib ugu soo noqoto iyadoo oo madax bannaan ay ka tashato aayaheeda ayaan isweydiinaynaa insha allahu tacaala qof walba oo culamada ka mid a inuu aragtidiisa sida isaga ugu muuqato uu ka dhiibto marka waxaan ka bilaabi doonaa garabkayga midigta maxamed casoowe walyatafadal sheekh mustafa aduu ku agyaala hadda mikrofoonku midigta xagga ka soo wada marka bismi illahi raxmaan raxiim warkaas ka kooban wuxuu yahay etoobiya aragtida aan ka qaba waxa weeyaan etoobiya iyada jiritaankeedu liita oo etoobiya taariikhda la garanaya dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadannada minority group ku taliyaan etoobiya hadday diin noqoto hadday dad noqoto hadday qoomiyad noqoto dowladdii mililigtii xayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group diin ahaanna waa minority dad ahaanna waa minority kuwa ka taliya waddanka etoobiya la yidhaahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystaa bay ka mid yihiin saa daraaddeed minority dowlad waddankeedii ku ah u malayn maayo inay soomaalina sii gumaysan karayso kale iyadaa waddankeedii minority ku ah inay haddana soomaali sii gumaysataa waa wax adag laakiin soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa soomaalidu caqiidadan qabiilka ee diin iyo waddan iyo dhaqan iyo dadnimoba ka xooga badani intay jirto ee ah in reer loo gaaloobo gaalkii ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay soomaalidu xornimadoon lahayd reer baa lagu dumiyey waxay dowlad yeelatay reer baa lagu dumiyey waxa iminka axmaaro wada reer baa lagu wadaa wax allaa idan caqiida taallaa ah reernimadu qofka soomaaliga inay kala qaalisan tahay dowladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba cadowga koowaad aan u arkayo mujtamaca soomaaliyeed haystaa waxa weeyaan caqiidadaasi qaldan ay soo haysteen caqiidada waa in laga takhallusaa oo ay beddeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo dhaqan ay waynu beddelaa hadi waaxida ka labaad aan tilmaamayana waxa weeyaan bini aadamku mar kasta uu hadaf yeesho wuu gaadhi karaa aan ahdaaf waaweyn yeelano reerku waa wax yar misagaa qofba qaada qof han le reer ma qaado reerku waa in yar dhowr kun oo qof baa isku reertiin dhowr kun oo qof wax madaxnimadooda iyo hoggaankooda iyo intan la raadiya maa xataa dadka hoggaanka doonaya waxay ahayd inuu han jiro han weyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunida inaan wax ka bedella ka fakera geeskii yaraa inaynu sii tunno un intaynu ka fekerayno caalamka bashar baa maamula bashar baanaynu nay idan inuu hankeenu weynaado aynaynu dunida wax ka bedella inaan ka fakarne tobankan madmadooba geeska joogaa uun qaybqaybintooda waxba tari mayso dad han le aan noqono haalitan waxaan leeyahay diinteenna aan dib ugu noqono oo islaamnimadeenna qaadanno
raabican waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan ha midoobaan oo ha la isku dayo war haddii waxaynu ku kala qaybqaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro oo badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan is leeyahay haddii dadku ay ka fakeraan oo si ballaadhan uga fakeraan wax badan baa la qaban karaa laakiin intay fikraddu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan uu ku faraxsan yahay haddii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahayde reerkan kaluun baad dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciduma kaasii dhimatay laakiin baga mayga dhimasho badatay weeyaan intaynu doonayna shan baa anaga naga dhintay idinna 100 baanu idinka dilay war 105 Soomaaliya maad ciidda hoos marisay waxba kale maad kordhin idan waxa anigu aan ku koobaya wax weeyaan haddii han iyo islaamnimo iyo vision iyo qiyaadaad aragtidaa leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkeenu ku noolay xaalada ka xun baana dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam waxaan shaad raxmaan baan siinayaa insha Allah taala mikrofoonka haddii uu isagu laftigiisu ka dhiibanayo aragtidiisa sheekh maxamed Idriis alxamdulilah يديرada iyo mustaqbalka horta awalan inaan tafaa'ul qabno ya'si aanu nagu dhicin waa arrin koowaad xeelo tahay innahu laa ya'asu min rawxi illaahi ila alqawm alkaafiruun inaynaan ya'si quus iyo waxba lama qaban karo iyo berri wax noqon maayaan inaanu nagu dhicine inaynu rajada ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu qabno mataa nasrullah alaa ina nasra allahi qariib taas waa midda koowaad oo aan ku kabayo hadalkii sheekha qodobka ah qabaliyada in laga xoroobo waa asaasi waa siduu sheekhu u sheegay waxaan kaleeto oo ku kabayaa midnimo haddaynan lahayn sidaynu wax ku gaarnaa waa adkaanaysaa sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kownka iyo qaanuunka iyo nidaamka uu u dejiyay adduunku ku socdo ummad firiqsani waxba ma noqoto waxna iskama celiso taariikhdoo dhan baa ama muslim ha ahaato ama gaala ha ahaato waxay doonto ha ahaatee hadday firiqsan tahay oo kala burbursan tahay kala jajaban tahay oo koox tahay waxba ma gaadho arrinkaasna waa inaynu ku qanacnaa si aynu u bedeli lahayn aynu ka wada shaqaynaa qof walbana mas-uuliya ka saaran arrinka kaleeto aan ku kabayo waxa weeye kala dambayn haddaynu wuxuun maamula samaysano in yarba ha ahaadee oo madax uu leeyahay oo maamul leeyahay maamulkaasu haddaanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo is-adeecid wixii aan ahayn macsi ilaahi subxana wa tacaala ismaqal iyo is-adeecid haddaanu lahayn waxba ma noqdo meelna ma gaaro etoobiyana ma kicin karo cid kalena ma kicin karo meelka dawladna ma dhisi karo ya adigoo madaxa oo maamula haddaan anigu hoostaada ka shiro ama ka shaqeeyo waxa jira waa isla ognahay haddaan anigu dhinac kale u laabto waxba ummaddaas uma suurto gasho ummaduhu maanta iyagoo og nimanka madaxda u ah iyagoo nacaya oo karahsanaya ayay haddana nidaamka iyo kala dambaynta ilaalinayaan shacabka maraykanka waad aragteen baan u malaynayaa boqolkiiba waxaa la leeyahay shacbiyadda bush waxay maraysaa boqolkiiba 55 boqolkiiba 60 inay ka soo horjeedaan dad weynu haddana mathawra lagu kicinayaa oo inta lagu kaco baa nidaamkii oo dhan iyo barlamaankii iyo dawladdii oo dhan miyaa la kharibaya maya waxaa leeyahay wuu tegayaaye waktigiisa ha u dhammaado haynaga tago hayna dhaafo kala dambayn iyo qaanuun la degsaday baa la ilaalinaya inagoo muslimiina haddaynu ilaalin weyno taasna wax inoo socon maayaan waxaa kaleeto oo iyaduna u baahan inaynu aragti ka dheer aragtida hadda socota oo aynu wax ku fiirinayno oo cadowga halkan meeshan dhow wax laga fiirinayo inay iyaduna ka ballaarnaato cadowga cadow ballaarano isbahaysanayo weye inaguna intaa in ka ballaaran oo soomaalinimo iyo muslimnimo daa'iradeed gelaysa ayaynu u baahannahay inaynu kaga hortagno waxaan yaraya ku jira buukooyinka iyo waababka yaryar inaynu ka xorowno wabillahi tawfiiq baarak allah fiik sheekh maxamed adiga oo ku darsanaya sawirka
wadciga bulshada Soomaaliyeed marka laga eego xagga midnimada maanta oo ku salaysan waliba islaamka iyo qaabka ay hadda ay u wajahayso ama hadda ay isu urursanayso bulshada Soomaaliyeed adiga sheegay iyadoo inta leeg baa kaaga muuqata in ummadda Soomaaliyeed ay sii iloobayso ama ay ka sii baxayso meeshii ciriiriga ahayd sida Sheekh Mustafa ku sheegay 10kii Ramad Madooba oo si kala qaybiyay wixii qabiil ku salaysnaa iyo qabaliyada ilaa inta in leeg bay ka sii durkaysaa u soo durkaysaa dhankii wuxdada iyo isu imaadka iyo maxaa la yiraahdaa waltinimada ku salaysan islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim horta laba arrimood oo laba dhinac ay shuyuukhdu ka fiiriyeen labadaba waa arrin muhiim ah xagga diinta iyo xagga maxaan ku dhahaa aragtida siyaasiga ee dawladda tarkiibada dawladda Itoobiya macnaha say u dhisan tahay hadaan ku soo dhawaado su'aasha gaarka ee la weydiiyey horta in yar baan idiin sheegayaa waxaad iga qortaan nimanka hadda la socda dawladda maxaan ka wadhaa Itoobiyaanka iyo garabkaas iyo dhinacaas iyo garabka hadda lagu soo duulay oo mesela nooc doonaba ha ahaadee xaggan kala jira taariikhda gacanta Itoobiya qaab kuwa ku dhinta kuway u badnaan doonaan ifhamteen macnaha يعني خسارها ما قريها iyo baawo waxaan la burburinay kama hadlay laakiin basharka dadka ciidanka la yiraahdo ee qaarna xaggan ka soo jeedo ee Soomaaliya ka wada qaarna ay xaggan ka soo jeedaan kuwa dhimashada ay u badnaan doonto iga qoracida badnaan doonto waayo mahma xaqiiqo ku dhisan baa jirto oo ah xabashi oo marka Itoobiyaanka looga jeedo iyo dameeruhuba geedka u dhow bay cunaan macnaha يعني waxa marka ugu soo xigay iyaga ay is ag taagan yihiin kuwaasay dilaanba saad moodeen maaha geedu qaarka aad u malaynaysan kuwa kala laynayaan maaha kuwanay laayaanba kuwanay ka argoostaan iyagu kuwa la socday isla fadhiyaan ay wada socdaan bay dilaan waxa aqoon dheeraad ah in arrinta laga soo taariikheeyo cidda uu dhibka Itoobiyaanku ay geystaan ay u badnaan doonto kuwa ka soo horjeeda iyo kuwan ay maxay ku dhahan wada socdaan sababtu waa maxay kuwa ka soo horjeeda had iyo jeer siyaasad iyo dagaal xadaysan bay la qaabili doonaan oo waa niman kala raba in laga guuleysto ama la isfahmo ama la wada sheekaysto saasay la qaabili doonaan laakiin kuwa la socda edbin iyo inay iyaga maqlaan oo ay amar qaataan oo wax ay iyagu ka xishoodeen inay soo fuliyaan ay fuliyaan bay ku amri doonaan markaas horta dharbaaxadu xaggan u badan doontaan geedda meesha laga raadiyo maaha intaas asan leey Soomaalidu hadda arrintan maxaan ku dhahay wax uga tartay xagga hididiilada iyo midnimada marka la fiiriyo arrin weyn baa ii muuqata aniga oo maxaan ku dhahay la oran karo Soomaalidii himigeedii iyo garashadeedii iyo caqligeedii iyo xaqiiqadii jirtay ee markii hore dhoodhoomnayd ama waxyaabaha tabriiraadka lagu dadaday oo dadka in badan u muuqan wax badan baa u muuqda Soomaalidan arag adduunka qaaradaha oo dhan Soomaalida inay ka mudaharaadayso maanan arki jirin markay qabaa'ilkii waxa ay jireen waxa maanan arki jirin yaani dadkan kala duwan ee fara badan ee meelo badan kala jooga oo gidigood dhawaaqay maanan arkin Soomaalidii meelihii wadamada Yurub looga talin jiray White House-ka way hortaagnaan maalin dhaxdeera iyagoo waraaq sida ma yeelayno gurigan maxaan ku dhahay Ingiriiska way hortaagnaayeen Sweden maxaan ku dhahaa wadankan aan ku noolahay Oslo iyo meel kasta Soomaalida waa dhaqaaqaysaa way arkaysaa dulmiga ku dhacay waxbuuna xataa marka waxay ku iloobi doonaan baan rajaynayaa kala duwanaanshii hoose ee culimadu ka hadleen ee qabiilka iyo maslaxada hoose iyo dadnimo hooseynta hoose ku xidhnaa inay ku iloobi doonaan baan rajaynaya oo tani dib u dhis qaran oo Soomaaliyeed horseedi doonto khibro yar oo la ina bartay sidaynu u wanaagsannahay markaynu hadafkeena iyo danteena ka rusheegayno oo 6 bilood waan soo marray ka islaamkiina ku dhaqanay dadku ay doorteen la hor keenay waan aragnay say arrintu u fiican tahay iyo qaabka aan wax ku samayn karno misaladaas dad badan hadda xaabka ma saaro oo ficil ahaan baan u aragnay dulmi
iyo maxaan ku dhahaa siduu u xun yahay iyo gardarooyinka nooc ay u dhacayaan waan aragnay labadaaba waxay naga saacidi doonaan inaan midowno midda labaad nasiib baynu leenahay saa ma ogtiin haddaad kolley qofuun la coloobi ood isdilaysaan qof kaa tabar yaran ood ka adag tahay la colow warkaa ma haysaa saas waay kolley un haddaad cid qabanaysaan cid madmadow oo siduu sheekhu u sheegay Ethiopia oo kala maalan meel ay ku dhisan tahay male meel ay ku dhaqaale ay ku dhisan tahay male ciidan ay ku dhisan tahay male maxaan ku dhahay thaqaafa iyo maxaan ku dhahay waliba nimanka wax xukumaan ka wada ay ku dhisan tahay ma jirto baarlamaankeeda baa xidhan jarnaaladeedii baa istooganaya oo xabad isku dhufanaya iyagii waa wada baxsanay ma ogtihiin warka waan oranayaa sanadadii la soo dhaafay xataa dagaalkoon dhicin diblomaasiyiinta ugu badan oo heer safaaradeed ugu yartay wadanka ay ka goosteen Afrika inay Ethiopia yihiin iska tago hadda ma safri karaan saa mula socotaan hatta ciyaartooygooda ma laabto kuwan ciyaartooyga loo soo diray maxaan ku dhamaa maratoonada ee banaanka yimaada ee ka soo qayb gala xafalaadkan caadiga hadda ma yimaadaan wufuud qoyskii Tigreega ahba isku ururiyay iminka kuwaasaas safra laakiin xabashidu ma safarto oromadu ma safarto sidaamiintu ma sarfaan canfarkan ma safro soomaalidana iska badaa kiis kala waay markaad hadaad wuxuun la coloobi ciidan oo kale la colow waana ka rayn doonaa insha Allah ta'ala hada wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi بارك الله فيك waxaan insha Allah taala inta inaga gabagabayn barnaamijkeena waxaan xusuusinayaa walaalaha ka soo qayb galay kulankan shalay inay baan filayaa cajalad baan ku arkay video ah oo ka hadlaysa taariikhda geeska Afrika macnaha siraaca u dhaxeeyay kaniisadda iyo masaajidka geeska Afrika Ethiopia iyo Soomaaliya gaar ahaan oo musalsal oo dheer baan arkay shalay halka video meeshan hoose maqaayada aan ku arkay waan baraarujin lahaa walaaluhu inay waxa duubay baan filayaa Sheekh Cabdiraxmaan Abyad walaaluhu inay iyaga lafteeda ka faa'iideystaan waa taariikh qofka oo taariikhda garanay waa adagtahay inuu saleeyo mushkilada waxaad moodaa inta badan inaan ku soo koobayna hadda colaadda inaga Ethiopia u dhaxaysa wixii ka dambeeyay 77kii ilaa iyo maanta inaynu ku salsaleynayna moodaa isla markiina waxa meesha ka baxday wixii inay colaad ma jirtayba marka bal cajalada insha Allah ta'ala hal raajiyo cajalada aad iyo aad maartay muhiimad u leh waxaan kaloo inta uga baxayna maanta barnaamijkeeni waxa jiri doona muxaadaradii Sheekh Yusuf waqtiga loogu talagalay waxa ka dhiman 10 daqiiqo ka jimicsan insha Allah ta'ala waxay ku saabsan tahay hufidda nafta bay ku saabsan doonaan insha Allah ta'ala marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh